بسم الله الرحمن الرحيم إلا إيا ديسمبر صدر كودي لبدي كونية سغالي تون سنة كي تغي مركي عذركا لو يقانو كوفيد 19 كون عام بحي كورونا فيروس laga ogaaday dalka Shiinaha inuu ka dilaacay waxa sii kordhay xawliga uu ku faafay cudurkaas Soomaaliyeed umada aan u sheegno in maanta ay tahay 16 bisha Maars 2020 aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horeeyay oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq aad iyo aad ugu koreeyay وأنا سأنا ما ساعدنا دار فيلاتي مال بعد دافع الدنيا في جوتان ما أنت يا مقال روح بدنا مقال كنا ما توحنا كجاه اللي دونا عذر كوفيد 19 أو عذر الدنيا خلق شيء أنا ضيعك إزدي حدا دونك وعدد يفرس وحدا قال ما واحد كلام هني هذا نقدر نسمع دوش ميديا فضلا دي تعمل قرش مقال كنا مسوي دار سبسكرايب لايك شير كومنت لا دع حلقة في تجاسي وأنا وسك بيا وحين سجدنا البرنامج كأدوية بكرة النقطة مركز مرات سود ولا maanta barnaamijkan idin wada wax kala ma ahan waxaan ka hadli doonaa caabuqa COVID-19 COVID-19 ayaa cudur aad iyo aad dunida u qabsaday hadalhayntiisuna badatay saameyntiisuna aad u dunida lagu arkay boqol konton waddan oo dunida ka mid ah maanta ku faafay cudurka ayaa waxaa la sheegaa 200,000 oo kiis in loo diiwaangeliyay daafaca caalamka dhimashadiisuna hadda ilaa waxay maraysaa 8,000 oo qofood cudurkan ayaa cudur aad halis u ah waana virus ilma aragta asalkiisu wuxuu ka soo bilowday dalka China asagoo soo faafay hadda step u soo socday ma maxay socday ugu dambeyn buu soo gaaray dalka Soomaaliya magaalada madaxda caasimada dalka Muqdisho ayaa waxa lagu sheegay inuu hal qof soo gaaray oo cudurka qaba oo waliba la tacaala ahna muwaadin Soomaaliyeed وزارة dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku dhawaaqay in muddo 15 maalmood la hakiyo isku socodka iyo isku soo baxyada iyo beelaha bulshada isku yimaadaan in la joojiyo si loo xakameeyo cudurkan kulli si loo xakameeyo marka mushahalaha magaalada waa galay waa noqon kartaa mana gelin noqon kartaa dowladda federaalku waxay sii balan qaaday lacag 5 milyan oo dollar inay ku kharash gareyn doonto la tacaalida cudurka iyo xakameyntiisa isbitaalka Martini in laga dhigi doono goob lagu karantiilo ama lagu daaweeyo dadka qaba caabuqa COVID-19 shacabka Soomaaliyeed u sheegayna in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta bari ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dawladda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaadana aan u xoojin konton gobol oo ka mid ah Mareykanka waliba waxa la soo sheegaa in ilaa iyo hadda 6,000 oo kiis lagu hayo Mareykanka ee ku dhintay 54 qof cudurkan ayaa waxa la xaqiijiyay haddii Britain iyo Mareykan iyo la fiishay dadka dhintay ama tirkoob la sameeyaba dadka u dhiman cudurkan waa 55 ilaa 70 mawduuc sadadooda ama dadka xanuun kala qaba cudurkan waa qufac adeesuday waxweyn ma qandhiga xogaa waxyaalo kala wataa laakiin Soomaaliya ma sha Allah hadii hadda islaam beenahay caalam muslimiin beenahay waxa kan gaalada wareynay hadda wadamada gaalada waa taqaaniin waa arkaan badanaa dhul gariir ba ka dhaca musiibooyin baa ka dhaca COVID-19 waa virus ka faa'iideysta difaac yarida jirka bini'aadanka kaasoo hoos u dhiga unugyada jirka sida heerkabka oo kale fadlan ku dadaal waxyaabaha difaaca sare u qaada sida leenta noocyada kala duwan toonta sanjabiilka iyo kalluunka iyo waliba xabasooda dalka India aad bay u isticmaalaan waxyaalaha nafaqada leh aan hadda idin soo sheegay
ilaa haddana lama soo sheegin ilaa hadda hal qof oo bukaan ah oo cudurka coronavirus ama COVID-19 virusku ilaa hadda lagu arkay. sababta ayaaba ah cudurka kan wuxuu soo ritaa oo hoos la galaa waa dadka nafaqa darada ama dhiig yarada ama unugyada jirka difaaca ay ka dhamaadeen ama ay ka dhinteen dhulka la galaa. walba wax cusub cudur cusub baa laga sheegaa. anaga caalamul islaam baana dad muslimiin baynu nahay. ilaahay baa waxa naga haya, ilaahay baynu tala saarno, tawakkal ala Allah baan leenahay. cibaadada hala badiyo salaada la tukado, ilaahay hala bariyo, alla bariga badiyo. hadaad ilaahay ku digrisaan oo xustaan ilaahay waxaan waa in qaadiya. walaal haddii aad maqlayso muuqaalkeena kusoo gaaro fadlan sii share garay, like garay, comment, subscribe kan ku dar channelkeena si aanu muuqaaladan soo dhignaa u noqoto daawada ugu horeeya oo arka. sii share garay mar labaad kuna dadaal waxyaalaha nafaqada leh sida borotiinada oo kale.